halkani waa deegaan u dhaxeeya Halaye iyo waliba oo barkhadle waxaana laga dhagax dhigay qasriga suldaanka guud ee beelaha Somaliland Suldaan Maxamed Suldaan Cabdiqaadir munaasabada dhagax dhiga goobtan ayaa waxa ka soo qayb galay maayirka caasimadda Somaliland Hargeysa Cabdiraxmaan Maxamuud Caydiid Solteelko xildhibaano ka kala tirsan golayaasha deegaanka dalka mas'uuliyiin ka kala socday saddexda xisbar qaran iyo boqolaal dadweynaha munaasabadani oo ahayd mid qadaa ayaa waxa ugu horeynba ka warbixiyay gudida qabanqaabada qasrigan laga dhagax dhigay deegaanka Halaye waxaana faahfaahin ka bixiyeen ujeedada qasrigan loo dhisayo odayaasha deegaanka iyo waliba qaar kamid ah mas'uuliyiinta saddexda xisbar qaran ee Somaliland oo iyaguna halkaasi ka hadlay ayaa waxay uga mahad celiyeen bulshada isku xilqaantay qasrigani iyagoona sheegay in wax weyn ka tari doono sanadada guud ee Somaliland Suldaan Maxamed iyo marwadiisa waa nagu qaali si kal iyo laabaan u soo dhaweynaynaa waxa kaloon idiin sheegayaa hadday tahay hay'adaha dawladda tan nabadgelyada ta amniga ta maalinkan maanta mid kastoo tahayba waxaanu ku soo dhaweynay dhulkan oo shakhsi waliba imika sidii xoolaha dhulka sumada loogu dhigtaa nin walba dhul baa u suntan ninka dhulkaa wax ka bixiyaa dee waa nin dheeraad leh xafladda dhagax dhigga qasriga suldaanka guud ee Somaliland Suldaan Maxamed Suldaan Cabdiqaadir anigu shakhsi ahaan xildhibaan ahaan jeebkayga anoo garanaya sanadada waxay waxaan ku deeqayaa $10,000 ayaan ugu deeqayaa sanadada guriga qasriga waxa weeye wax lagu ciyaari karo ma saldanadu waa saldanad abka isir aad iyo aad duriyada reer Sheekh Isaaqoo dhan toogu facweyn ama geeska Afrikada toogu facweyn qasriga loo dhisayo farxad aad iyo aad u weyn buu yahay ayaan qabaa aadna waan ugu weynay in badan oo hadalnay degmadayada Halaye ee dhulka inta leeg bixisayna aad iyo aad iyagana ugu mahadcelinayaa haddii sandaladina halkan maanta aan ka rajada qabnay qasriga laga dhiso halka waxaan islahay maamul dadijin dhaqan baan rajeenaynay suldaan laakiin waxa sameyn doontaa tan dhacday haddii ilaahay ka dhigo madaxtooyo goboleed suldaan goboleed guriga madaxtooyada oo anaguna ku baaqaynaan kagu wareego gobolka Togdheer oo dhulbaraha Somaliland maro aan ku sameynaa haddii ilaahay ka dhigo daana weyn dhalinyar oo maanta aroos oo marwadiisa la fadhido aad iyo aad baan ugu hambalyeeyaa suldaanka waxa weeye barakooyinka ilaahay bixiyo ragii cimrigiisa ahaa garbaha la hayaayo mala salaada loo kaxaya masaajidkii suldaanka waxaan ku hambalyeeyaa in badan saaxiib aan lahaa jiro ayaa dhismaha guriga iyo waxa laga hadli jiray hadday maanta iyo Halaye noqotay iyo karaashkii sida waxa ku leeyahay hambuli waa dhisa karaysaa kaliya labadiiba dhisa karaysaa suldaan hambali ku leeyahay farxad gaar ay tahay farxad gaar ayay tahay suldaanka maalin baa uulada wada noqday annagoo uula ah ayuu suldaan noo ahaa محمد عبد السلطان بيسوق قرة لما دمين شير مقعة لكن سدمانته يو سلطان بنوها سيدي بانو سلطان يقول يعني maayirka caasimadda Somaliland Hargeysa Cabdiraxmaan Maxamuud Caydiid Solteelko iyo qaar kamid ah madax dhaqameedka dalka iyaguna halkaasi ka hadlay ayaa waxa ay soo dhaweeyeen qasrigani loo dhisayo suldaanka guud ugu dambeyntii suldaanka guud ee beelaha Somaliland Suldaan Maxamed Suldaan Cabdiqaadir iyo injineerka guud ee isagu dhismaha dhisaya ee Jahir Construction Company oo halkaasi ka hadlay ayaa waxa ay yiraahdeen guriga sabada koolka shirarka guriga martida masaajidkii اللهم صل على محمد باسكتبول iyo maartay barkadooda kayda oo maartay biyaha maartay kayda saar chiimkii iyo wada soo gasho laan ayaa maartay qasriga oo qasriga imika halkan wuxuu ku dhacayaa maartay baaxad xogaa inoo jirta marka waxay noqonaysaa 1200 mitir ma hal kilomitir iyo bar marka shirkadii la siiyay dhismahan waxa ay soo qiimaysatay oo baahda Jahir Construction مليون لا بقوليو شريعة. سلطان محمد الله صاحب كاني كل الله يقول تاعي معي. وهاي أنا ما كورن معي هالكم.
laakiin waxaan leeyahay dadweynaha intan iyo inka badan inta la qaybiyo qaaraanka yaa si fiican loo qaybsan doonaa insha Allah tacaala intaasaan ku dhaafi doonaa xafladda suldaanka annaga kulley shaqo badan oo wadada kulley way noo taalaay wixii gudaha marka la iska tagay insha Allah tacaala taasaasaan ku dhaafi doonaa afkii suldaanka runtii waxaan ku aad iyo aad waxaan ugu mahadnaqaynaa dhammaan xisbiyada ka soo qayb galay siiba ballantii sida cad u qaaday xisbiga waddanka aad ugu taageeraya dhismaha qasrigan ayaa waxa uu ka koobnaan doonaa dhammaan baahiyaha asaasiga qaybihiisa kala duwan oo kala leh hoolalka shirarka kuwa martida iyo waliba qaybaha kala duwan ee sandaladda ay ku talin doonto waxaana ku kici doonta lacag lagu qiyaasay 1 milyan iyo badh sida uu sheegay injineerka guud ee dhismahan dhisaya Khadar Maxamed iyo Khalid Yuusuf Xasan deegaanka Hadlaya magaalada Hargeysa.